Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear students. Welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson. Today we are going to learn an idiom, and this lesson is designed for advanced students. When I say advanced students, I mean a student who is capable of writing, reading, speaking, and understanding English language. So if you are among those, please keep watching this video till the end because this video is yours. And I hope at the end of this lesson you will be capable of using these idioms in your daily life. And if you are beginner or intermediate students, we have already prepared your lesson and they are in our channel. So please go to our playlist and check videos from English to Somali or English beginner. Let's come back to our today's lesson. Ardayda qaaliga kusoo dhawaada Moonlight Academy, kuna soo dhawaada casharkeena maanta. Casharka maanta sida aan horey usoo sheegay waxaan ku baran doonaa waxa la yiraahdo idioms. Idioms macnaheedu waa sarbeeb. Sarbeeb waxa la yiraahdaa hadal yani sida loo dhigay aan macnihiisa ahayn wuxuu leeyahay macno qarsoon ayuu leeyahay. Marka hadaladaasi ayaa la yiraahdaa waa sarbeeb. Okay, sarbeebta maanta aan qaadanayno ayaa ah I have swallowed the pate. I have swallowed the pate. I have swallowed the pate. Okay, macnaha guud haddii aan fiirino I have swallowed macnaheedu waa liqid, pate macnaheedana waa cuntada lagu dabo dabinka. Marka haddii aan fiirino waa I have swallowed the pate macnaheedu waa waxaan liqay cuntadii dabinka. Marka macnaha hoos haddii aan fiirino macnaheedu waa swallow the pate macnaheedu waa to respond inaad ka falceliso to someone's action, ficil qof uu sameeyay, qof ficilkiisa inaad ka falcelisid, or to respond words inaad ka falcelisid hadal in the way that they intended sidii loogu talagalay. Yani inaad ka falcelisid ficil qof sameeyay mise inaad ka falcelisid hadal qof ku hadlay ayaa la yiraahdaa swallow the paint. Waxaan liqay cuntadii dabinka. Waxaan liqay cuntadii dabinka. Si kale haddii aan u dhigno waa tusaale haddii aad ma aragtay oo dabin aad rabtay inaad dabtid, dabinkii cuntadii lagu dabi lahaa mise waxyaalihii lagu dabi lahaa oo aad ku cuntid qofkaasi dabinkiisa wixii loo dabay ma ku dhacayaan maya kuma dhacayaan. Marka qorshadii ma aragtay oo ninkaas maleegay mise ninkaas uu degay ayaad ka hortagtay mise ka falcelisay. Marka waxaad leedahay I have swallowed the paint. Waxaan liqay cuntadii dabinka. Okay, let's look at this short dialogue which is in between Mike and John. Waxaan fiirin doonaa wadasheekeysigan gaaban u dhaxeeya Mike iyo John. Mike iyo John waxay adeegsan doonaan sarbeebo. Marka sarbeebahaas isku day inaad fahantid macnahooda, anigana waan kuu sheegi doonaa sarbeeb walbo iyo macnaheeda. Adigana waxaan filayaa casharka markuu u dhammaado inaad adeegsan doontid ereyadan oo sarbeebaha ah u adeegsan doontid asxaabtaada. Okay, Mike ayaa hadalka bilaabay wuxuu yiri what's wrong with you these days John? What's wrong with you these days John? John ayaa maxaa kaa qaldan? You have always kept your nose clean. Mar walba waxaad joogtaysaa inuu sankaada ahaado nadiif. Marka kept your nose clean waa sarbeeb. Sarbeebtan macnaheeda ayaa ah to stay out of trouble. To stay out of trouble. Yani qofka inuu banaanka ka ahaado dhibka. Dhib walba uu dhaco banaanka ayuu ka yahay. Marka ninkan wuxuu weydiiyey what's wrong with you these days John? Ayaamahan maxaa si ka ah John?
You have always stayed out of trouble. Dhib walba banaanka ayaad ka tahay, maxaa qaldan? Marka John ayaa ka jawaabay wuxuu yiri it is all a hoax. It is all a hoax. Hoax micnaheedu waa a plan, qorshe to deceive, loo khiyaamayo someone, qof. Marka wuxuu ku jawaabay John it is all a hoax. Waxaasi oo dhan waa qorsho lagu khiyaamayo qof. wuxuu sii raaciyay I must admit, waa inaan xaqiijiyaa that I have swallowed the paint. Horey ayaan usoo sheegnay swallow the paint micnaheedu waa to respond to someone's action, in laga falceliyo qof ficilkiisa, or mise to respond words, in laga falceliyo hadal qof in the way that they intended, sidii loogu talagalay. Marka swallow the paint micnaheedu waa waxaan liqay cuntadii dabinka, yacni wixii lagu dabi lahaa dabinka aniga ayaa liqay. qorshadii oo dhan sidaas ay ku baaba'day. Marka wuxuu yiri I have swallowed the paint, waa inaan xaqiijiyaa inaan liqo cuntadii lagu dabi lahaa dabinka. sidaas daraadeed ayaan uga mid ahaan waayay dhibaatooyinka dhaco. Mike ayaa ka jawaabay wuxuu yiri how come? How come? Marka how come waxaa loo adeegsadaa to ask, in la weydiiyo about the reason for something, sababta wax, yacni maxaa u sababa. How come? sidee ayay ku timaaday arrintaasi, mise sidee ayay ku dhacday? How come? sidee ayay ku dhacday? John ayaa ka jawaabay wuxuu yiri unfortunately I parked up the wrong tree when I counted on Jessie. It turned out that she had also been planning to get rid of me. Marka John wuxuu yiri unfortunately, nasiib xumo, I parked up the wrong tree, waxaan sare u qaaday geed khaldan. Marka I parked up the wrong tree, waxaan sare u qaaday geed khaldan, waa sarbeeb. micnaheedu waa to be wrong about a reason for something, in lagu qaldamo sababta shay. yacni geedkan uu sare u qaaday wuxuu u malaynayay geed fiican, balse wuxuu ku noqday geed xun. marka wuxuu leeyahay I parked up the wrong tree. marka ereygan ama sarbeebtan waxaad isticmaali kartaa tusaale, shay aad u malaynaysay inuu ahaa shay fiican ayaa kugu noqday shay xun. marka waxaad leedahay I parked up the wrong tree, waxaan sare u qaaday geed khaldan. When I counted on, marka when I counted on ayadana waa sarbeeb. marka counted on micnaheedu waa to depend on someone, in lagu tiirsanaado qof, or mise expect something, in laga fisho qof wax, yacni in qof wax laga fisho mise in lagu tiirsanaado qof ayaa ah count on. marka wuxuu leeyahay when goortii I counted on aan ku tiirsaday Jessie aan ku tiirsaday. It turned out ayadan waa sarbeeb. turn out micnaheedu waa prove to be the case. turn out micnaheedu waa prove to be the case. mise it turned out waxaa ii soo baxay, mise waxaa ii muuqday that she had also been planning, in ayadana ay sii qorsheynayso to get rid of me. get rid of me ayadana waa sarbeeb kale, micnaheedu waa take action so as to be free of, yacni ficil la sameeyo si aad xor u noqotid. marka to get rid of me micnaheedu waa in ay aniga iga dhammaato. marka get rid of me haddii lagu dhaho waxaa loola jeedaa iga dhammow. get lost iga dhammow, get rid of me iga dhammow. marka to get rid of me yacni waxay ayadana sii qorsheynaysay inay ayadana iga dhammaato. okay, Mike ayaa ka jawaabay wuxuu yiri wuu ka xumaaday arrintaa ku dhacday saaxiibkiisa, waayo asaga wuxuu sare u qaaday geed khaldan. geedka khaldan la sheegayo waa Jessie. okay,
I counted on marka uu isaga ku tiirsaday Jesse yani Jesse ayuu isku dhiibay Jesse ayuu aaminay it turned out waxa u soo baxay that she had also been planning in ayadana sii qorsheynayso to get rid of me inay aniga iga dhamaato marka wuxuu u sheegayaa Mike wuxuu ku jawaabay oh I don't believe it taasi ma aaminayo mise taasi macquul maaha I don't believe it yani taasi ma aaminayo that's pathetic marka pathetic macnaheedu waa making you feel sad or upset yani wax kugu dhigayo inaad yani murug dareentid mise inaad xanaaqdid marka that's pathetic taasi waa arin yani igu abuurtay murug mise yani naxariista aan ku qabo daraadeeda ayaan la murugooday that is pathetic taasi waa arin murug leh harmal ayaan ku laaban doonaa ereyada oo dhan iyo macnahooda keep one's nose clean keep one's nose clean it means to stay out of trouble a hoax a plan to deceive someone swallow the pate to respond to someone's action or words in the way that they intended how come used to ask about the reason for something park up the wrong tree to be wrong about the reason for something or the way to achieve something count on to depend on someone or expect something turn out prove to be the case get rid of take action so as to be free of a troublesome or unwanted person or thing pathetic making you feel sad or upset harmal haddii aan fasiro keep one's nose clean macnaheedu waa to stay out of trouble in banaanka aad ka ahaatid dhib a hoax macnaheedu waa a plan to deceive someone waa qorshe lagu khiyaamayo qof swallow the pate to respond to someone's action in laga falceliyo qof ficilkiisa mise hadalkiisa sida ku habboon how come used to ask about the reason for something in la weydiiyo sababta shay park up the wrong tree to be wrong about the reason for something in lagu qaldamo sababta shay mise in lagu qaldamo dariiqa wax lagu gaaro count on to depend someone or expect something in lagu tiirsanaado qof mise in qof wax laga fisho turned out prove to be the case in ay sababta kusoo baxdo get rid of take action in la sameeyo ficil get rid of take action in la sameeyo ficil mise in la qaado ficil so as to be free inaad xur noqotid oo aad xur ka noqotid unwanted person qof oo ma aragti oo aan dan laga lahayn mise qof oo ma aragti oo aan la rabin or mise thing waxyaalo pathetic making you feel sad kuu sababay inaad murgootid inaad murug dareentid or upset mise aad xanaaq dareentid this is the end of our today's lesson I hope you enjoy watching the video and I hope you learn a lot from this lesson if you enjoy the lesson please like and share the lesson with your friends so they will be capable of using these idioms in their next day. Bye bye. See you in the next lesson. Goodbye.